وحلا برتو وحا أقيم بدن وشرف بدن وخير بدن قرآن كريم هذا الإلهي سبحانه وتعالى وحد الله برنا أسيا يا أوقير بدن نبي محمد عليه الصلاة والسلام محودهاي خيركم من تعلم القرآن وعلمه ضد هو وحا إذنكم وخير بدن متكين قرآن كدتك برا يمتك برتا سيدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام محودهاي الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم الدنيا نو إذل ومد إلهي سبحانه وتعالى نحرستي سلقفوي ayada iyo wax ku dhex suganba illa dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala mooyee quraanki sunnadi ahadiisi nabi maxamed alayhi salatu wasalam mooyee aw aalim aw mutaallim mid aalim ah oo muallim quraan ah ama sheekh diinta ilaahay faafinaya ah ama mid mutaallim ah oo quraanka ilaahay baranaya diinta ilaahay baranaya daalib ilmi ah mooyee qofka muuminka waxa la rabaa in uu quraanka barto diinta ilaahay oo barto si barito uu badbaado sidoo kale cilmiga sharciga ah oo quraanka oo ugu horeeyo waxyaalaha jannada lagu helayo kamid yahay qof walba muumin ahna aadi ay u jecel yahay jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu helo nabi maxamed alayhi salatu wasalam waxa uu dhahay man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala allah lahu bihi tariqan ila aljanna qofkii qaada wadadaas ku dalbayo oo ku raadinayo cilmi sharci ah quraanka ahadiista nabiga alayhi salatu wasalam iyo culumta sharciga ah oo sunnada iyo quraanka u adeegay inuu qofka barto oo wadadeeda qaado sahala allah lahu bihi tariqan ila aljanna janna ayuu ku mutaysanaya qofka muuminka hadoo janno doonayo diintiisa barto hadoo badbaado barito doonayo diintiisa barto haduu doonayo inuu nolol qurxoon oo raali ilaahay subhanahu wa ta'ala ka yahay inuu ku noolaado diintiisa barto kadibna marka diintaada baratid ku amal fal si marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ula kulantid u badbaadid